بسم الله الرحمن الرحيم أنا دران على علي waxaan ka warbixinayaa macnaha beerta inta ii beernay ilaa muddo 2 sano ah ayaan beerahay oo ku jira hawsheeda alxamdulillah 3 bilood oo hadda ugu dambeysay dhaqaale wax soo saar ayay yeelatay ma sha Allah yaanyo qare baamiye bacr intaas ay iga baxda walina magaalo weyn ma ana gaarin tuulooyinka ugu dhow degmada baan gaarsiiyaa hadda ma sha Allah meeshaan magaceedii degmada Galbarwaaqo ayay hoos tagtaa oo ka tirsan tahay alxamdulillah marka hadda shafaaceedu wax nagu filan oo naafici kara iyo reerihii awal baan wax u tabcahay bay hadda ku dhowdahay biyaha macna abuurkan ku samaysto waxa iska kaashaday WFP iyo SDRO waxa laga keenay 4 kiiloomitir meel jirta markaas ka bacdigeed bay wax soo saar yeelatay aad u wanaagsan waxaan ay shaqeynaysaa 9 bilood biyaha shaqeynayaan ilaa 6 biloodna waxba laga cunay 3 bilood oo horeysay mooyaan bismillaah magacaygu waa Maxamed Bashiir Magan kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Gaalkacyo galabta waxaan soo booqanay dowladka degmada Galbarwaaqo beerta New Barwaaqo oo casuumad nagu fidiyay maamulaha beerta iyo teamka warbaahinta Aram Production runtii beertan waa beer aad u qurux badan dalaga noocyo kala duwan ka baxaya aad baan ugu mahadcelinayaa dadka hay'adaha sida SDRO WFP ku dhiirigeliyay dadka deegaanka inay wax beertaan kaliya waxaan ku dari lahaa dadkan deegaanka beertan macnaha dadka meel galiya inay kaliya ugu daraan greenhouse oo ugu deeqaan
suntii macnaha cayaanka hadda ayax badan baa geesaha kusoo aragnay suntii lagu buufin lahaa in ay ugu deeqaan in seeds badan ay siiyaan miro badan ay siiyaan oo ay ku abuurtaan si abuurkooda horumariyaan runtii dhulkan dhul haddii la maalgeliyo beero badan kasoo baxaya waaye meel istiraatiijiyana ku yaalla una dhexeeya deegaamada Hobyo iyo Gaalkacyo bartankeeda ay ku yaalla deegaanada Galmudug dhan way kala gaari lahayd haddii lagu deeqi lahaa qalab macnaha hadii cagaf noqon lahayd haddii noqon lahayd matoor loo saari lahaa haddii greenhouse loo xiri lahaa waana mudantihiin wax la dhiirigeliyo waa mudan yihiin qorraxaas taagnaa asagoo faraya hadda u nimid ma sha Allah qariisi iyo babaygu nagu soo dhaweeyay nagu sooray marka waxa leenahay cid kasta oo gacan ka geysan karta maamulha noqoto hay'adaha noqoto NGO ha noqoto in ay dhiirigeliyaan dadka sidaan oo kale xoogooda maalhaya runtii waa wax mudan in la dhiirigeliyo aad baa u mahadsantihiin bismillaah maanta oo taariikhdu ay tahay 29 bishii 11aad 2019 waana xilli galaba waxaan booqasho u tagnay annagoo ah dhalinyaro kala duwan oo ka tagtay magaalada Gaalkacyo waxaan booqasho u tagnay degmada Galbarwaaqo waxaan soo booqanay beer ku taala agaarka degmada Galbarwaaqo u jirta 4 kiiloomitir beertaas oo magaceeda la yiraahdo New Barwaaqo runtii aad waxa ugu mahadcelinayna Allah subhanahu wa ta'ala maad iska leh mahadcelin kadib waxaan soo si fiican noo marti qaaday noo soo dhaweeyay maamulaha beerta New Barwaaqo Duraan Colaad Cali oo beertaas inaan booqano si fiican aan hadii la yiraahdo waxyaalaha ka soo baxayo aan si fiican u aragno indha ugu doogsano qarihii iyo liintii iyo waxyaalihii ka soo baxana maanta hadii la nagu marti qaaday oo aan si fiican uga bogsanay beertan oo ku taala hadii la yiraahdo cornerka degmada Galbarwaaqo runtii beertan waxay ka mid tahay beeraha ka baxa gobolka Mudug waxaana si u yeelanaa dhalinyaro kala duwan inaan beerta tagno beertaas u jeedino ay ka baxayso liin dhalaantii qarihii hadii la yiraahdo babaygii hadii la yiraahdo saytuun geedo kala duwan ma ka baxaysa marka muhiimadda ugu muhiimsan waxay ahayd in yacni in hadii la yiraahdo beertaas aan maalinba tagno dhalinyaro maadaama aan anoo dhiirigelinayna bulshada isku dayday inay wax tabcato oo maalkoodii hantooda geliyay ayagoo ugu talagalay inay bulshada kale in ay oo dalalka dibadiisa u dalban jiray qaraha liinta waxyaalaha yaanyada waxyaalahaas oo dhan ayagu dalkii ka soo saaraan oo ay bulshadii hadii ay qiimo jaban uga siiyaan in anagu markaa muhiimad ah inaan ku dhiirino oo aan ku dhiirino si ayaguna ay niyad ugu yeeshaan annaga in hadii la yiraahdo aan tusino inay tahay wax aan u baahanahay wax soo saarkeeda runtii aad baan uga mahadcelinayaa hadii alla idmo booqashadeena kaliya ma noqon doonto inaan hal beer kaliya booqano inaan laba booqano waxaan sameyn doonaa hadii gobolka Mudug inta ku hareeraysan u tagi doonaa sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa teamka Aaron Production maamulaha iyo cameramanada iyo editorka dhammaantood aad baan ugu mahadcelinayna oo ayaguna markasta jecel inay ka qayb qaataan horumarinta bulshada gobolka Mudug runtii waxyaalo badan oo ay horumar ka qayb qaateen ayagoo maanta aan u fiirinayn aan ku xujeenayna qarashaad iyo waxyaalo la mid ah laakiin waxay jecel yihiin inay horumarka bulshada ka shaqeeyaan waxaan leeyahay ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa oo mahadsantihiin bulshada kan waxaan leeyahay waxyaalaha horumar kale wax soo saar kale sida beerta iyo waxyaalaha la midka inay isku dhiiriyaan oo kaliya aysan noqon qofkaas inuu hantida u haysto inuu jeebka iyo akoon iska haysto waxaan hadii la yiraahdo waxba tarimayaan lacagtu way u baahan inay shaqeyso bulshada hadda isku dayday beeraha falatay intooda badan waxa weey dad jeeb yar u badan oo ama xoolihii ka dhamaadeen in marka la maalgeliyo lafti waxyaalo u baahan yihiin beerta hadda u jeedno maamulii markaan wareysan annaguna waxaan aragnay caqabado badan ama waxyaalo badan culaabo ay ka sheeganayaan biyo oo ku yar oo kala biyaha hadii biyo badan hadda beertan ay haysan lahayd sidaan iyo si ka fiican bay hadii la yiraahdo bay wax soo saarkeed u badan lahayd agabkii xoolaha hadii la yiraahdo waxyaalihii ka calin lahaa haday noqon lahayd maartay fiilada maartay iyo darbiyada iyo waxyaalaha midka haday noqon lahayd waxaas oo dhan hadii la yiraahdo waa ka maqan yihiin shaqaalihi ka shaqeyn lahaa oo aqoontii iyo nidaamkii lahaa dadkan hadii la yiraahdo khibradii inta badan waxa weey khibrad badan uma lahan in shaqaalihi marka ku takhasusay oo bartay beeraha hadii ay keeni lahayn ma haystaan dhaqaalihi sida darteed in ay helaan yacni laga caawiyo dhanka dhaqaalaha oo hadii la yiraahdo oo ay ku iibsan lahaayeen cayaanka iska dili lahaayeen
shaqaalaha haddii la yiraahdo soo bartay beeraha iyo haddii la yiraahdo ay fanka ku siin lahaayeen waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan yihiin caawinaad bay rabaan runtii aad baan u mahadsantihiin Allah subhanahu wa ta'ala mahad iskale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dambayn waxaan rabaa in macnaha aan siiyama u sheego dad badan waxay aaminsanayeen mudug inay tahay dhul dhagax ah waxba ka bixi karin tana ay qoys u noqoto sidoo kale dadka reer mudugana ay aaminsanayeen dhulkooda waxba ka bixi karin ay dhiirigelin u noqoto in la beeran karo aan uga baahnayn gobol kale maanta in macnaha aan magan war noqono qudaarteena qarihii babaayga tufaaxi wax walba noo baxayaan sanadaha soo socdana waxaan rajeynayaa inaan gaarno isku filnaan xagga wax soo saarka dalagga inaan gaarno oo anu aan soo saarno aan ka maarano goboladii sida Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe wax nooga iman jireen asxaabteena waxa la yahay waa u jeedaan mudug cagaar bay noqotay qudaarta ka soo baxaysa hay'ad ka bax fikirkii ahaa mudug waa dhagax wax ka soo bixi karaan ugu dambeyn waxaan madcinayaa teamka Aanan Production dhiirigeliyay beertan iyo beero la mid ah in macnaha ay soo saaraan dadka aan awood u lahayn in ay bulshada hor yimaadaan ama aan soo muujiyaan ay saheli karaan qalab warbaahineed waxaan ku dhiirigelinayaa teamka Aaran aan in badan uga bartay in dhaqaale iyo waxba ay ku xirin ay soo madhiyaan dadka danyarta ah dadka wax soo saarka ah dadka muruqmaalka ah si ay ugu dhiirigeliyaan in hawshooda si wataan runtii hawl fiican baa bulshada ay siin xilli fiican baa ku soo aadeen aad ba u mahadsantihiin alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh maanta lagu kulmiyey beerta Niyu Barwaaqo oo u jirta 5 kiiloomitir deegaanka Galbarwaaqo waxa maanta halkaan isugu yimid dhalinyaro ka timid degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug runtii waa wax lagu farxo in maanta aan joogno mid ka mid ah gobolada Soomaaliya ugu waaweyn oo ah gobolka Mudug beer ku taala oo ay ka baxaan waxyaabihii aasaasiga ah ee looga baahnaa haddii aan leeyahay qudaartii sida yaanyadii iyo bambanoonigii iyo basashii iyo dhanka kale oo mirihii ah digirtii iyo galeedii sidoo kale iyo qarihii ay ka baxayaan waxaa aad ugu mahadnaqayaa dadkii beertan soo abaabulay ee sameeyay ee waqtiga geliyay ee ku dadaalay oo uu ugu horeeyo maamulaha beertan ahna nin dadaal badan geliyay oo ah maamula Duraan sidoo kale waxaan halkaan aad uga mahadnaqayaa teamka sida dardarta leh u duubaya Aanan Production oo ah runtii team ka shaqeeya horumarinta bulshada noocyada kala duwan jecelna mar walba inay soo bandhigaan waxyaabaha deegaanka uu ku hormari karo beertan ay u jeedaan waxyaabaha ka baxa inta badan waxa ku nacfiya deegaanada kala duwan ee gobolka Mudug haddii aan leeyahay Galbarwaaqo ilaa Hubyo dhankaas kale waa la geeyaa laamiga ilaa Galansoor ilaa Bandiirada dhankan Gaalkacyona ilaa waxa loo gudbiyaa magaalada Gaalkacyo haddii markaas ay dalabyo ka yimaadaan meelaha kale oo gobolada kalena insha Allah waa inta awoodo way caawisaa beertan sidoo maamulaha sheegay beertan horta waxa la yiraahdaa Niyu Barwaaqo de markii wax la sameeynayo waxyaabo caqabada way iska yimaadaan sidoo deegaanka hadda ma sha Allah waa iska barwaaqo laakiin beertii mar walba waxay u baahan tahay biyo badan oo roobkii daay mar walba roobka ma daayo sidoo maamulaha noo sheegay beertan biyaha aad ugu yar saasoo taayna asugu ku dadaala haduu dhabarkiisa ku keenay haduu lacagtiisa ku keenaba hay'adaha marka waxyaabo dadka beeraha maalgeliya sida hadii aan leeyahay hay'ad ama hay'ado dawladda ama hay'adaha dawladda ama hay'adaha caalamiga inay beertan si horumariyaan si dadkiina maxaa leeyahay ugu anfacaan dadkan ay uga marmaan waxyaabaha shay loo keenay WFP iyo galeeda laga keenayo oo la soo daaweeyo ee dadkan u cunaan galey fresh iyo digir fresh ay u cunaan aad ba u mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Duraan Colaad ahna maamulaha beerta Niyu Barwaaqo degmada Galbarwaaqo waxaan u mahad celinayaa baahinta Aaran waa u mahad celinayaa marka koobaad marka labaad waxaan u mahad celinayaa maalgelintii hay'adaha WFP iyo STRO ay macnaha nagu taakuleeyeen oo wax soo saarkaan sababtay inaan helno waa u mahad celinayaa iyagana adduunyaduna ma dheregto baahi marka la helo mideeda kale waa marka baahida aan ka hadlayaan waxa weeye waa intii naga dhiman oo aan ka hadlay intaasina waa naga dhiman tahay
waxaan ka codsanaynaa inay sida noo dhiirigeliyeen waa uga mahad celinaynaa haddana mar kale inayna sii dhiirigeliyaan oo si aan tabac kale u sii helno waayo wixii hadda wax soo saarka aan helnay degmooyinka nagu xiga sida wargalo oo kale alguulo oo kale ka shishe ilaa afguduudle ilaa wisil waa gaaray alxamdulilah waxaa dhici lahayd marka horumar kale haddii nala kugu sii daro inuu gaaro gobolka inuu gaaro ama degmooyin kale oo kasii badan inaan deeqno marka waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu